بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى ayaa wax kasta qadaray, wax kasta asaga qoray, cilmigiisa ay ku qornayd midana ay dhacdo, laakiin see u dhacday. midda koowaad, qof kasta waxa uu ku mashquul yahay, waxa uu ku fakarsan yahay, waxa uu ku shaqaynayo ayaa lagu khatimaya. sheekheena Sheekh Cabdulqaadir raximahullahu tacaala nin diintan iyo dacwadan iyo alla ku xirnaanta iyo dikriga ilaahay iyo salaada iyo masaajida uu ka shaqayn jiray ayadiiba lagu khatimay. khatimada wanaagsan allah uu aqbalo, allah shahaado uga dhigo. annagana kuwii waddanka qaada oo shaqada hayay haya dacwada iyo diinta iyo islaaxa muslimiinta iyo danaha ummadda ka shaqaynaya waddadan kuwii ka dhaxla allah naga dhigo. midda ku xigta tacsiida dadkan la wadaagaa isku tacsiyeena dhammaanteen eheladiisa qaraabadiisii saaxiibadiisii iyo dadka qaba Soomaaliyeedba oo ummadda islaamka ah fiirkii ka mid ah sheekhaasi. ilaahay subxaanahu wa tacaala badal khayr qaba oo booskiisii noo gala allah na siiyo. walaalayaal, falka ka dhacay meesha waa laga sheekay waxa uu yahay dad khaldan oo wareersan ayaa waxaasoo kale samaynaya. war waxaa la yaqaanaa dagaalka adduunka ka dhacaa, ama ha ahaado dagaal muslim ama ha ahaado mid gaale, qawaacid iyo nidaam iyo axkaam iyo aadaab buu leeyahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala oo nabigiisa sala allahu calayhi wasalam soo diray oo quraysh gaaladii cadcadid la dagaalamahaya oo aslaamtii la dagaalamahaya ayaa waxaa loo yeelay maalmo xurmo leh, bilo xurmada la sameeyey, zaman xurmo leh oo aan dadka la taaban baa la sameeyey, makaan xurmo leh oo dadkii gala aan la taaban baa la sameeyey, dad xurmo leh oo aan la taaban baa la sameeyey oo nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisa loo diidanaa. dadka maanta marka diin sheeganaya oo intii ilaahay xarimay oo ilaahay xurmeeyey ku xadgudbaya, kuwaas inaysan diin haysan halkaas horta ka cadda. midda kale, dadka waxaa samaynayaa inay khawaarijta yihiin. hadda maalinka dambeysa way sii caddaanaysaa nimanka ficilkaa samaynaya oo sheekhaas uga tukanaya ku yahaya oo masaajidka ilaahay aan ka xishoonayn, salaada loo taagan yahay aan ka xishoonayn, meesha la taagan yahay aan xurmaynayn, dadkaan ilaahay abuurtay hortaagan oo magan ilaahay ah oo marti ilaahay ah. qofka halkaa wax ku leenayaa qofkaasi uu qalbiga laayahay, indhaha laayahay, basiirada laayahay, halkaasay ka caddahay. walidaalika diinteenna iyo axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam si cad ayay nimanka noocaas oo kale ah uga hadashay, una sifaysay. waxay ku sifaysay, ku tilmaamtay tilmaamo la yaab leh. haddii maanta laga weydiin lahaa qofka dadka bani aadamka ah ugu nasiibka xun waa qofkee, waxaa laga yaabaa inay odhan lahaydeen talow fircoon miyaa, talow abulahab miyaa, halkaasay aadi lahaydeen. laakiin nabigeena sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu yidhi ma taqaanaan ashqa annaas, bani aadamka kuwa u horreeyey iyo kuwa u dambeeya dadka ugu nasiibka xun miyaa garanaysa? waxay yidhaaheen saxaabadii maya yaa rasuulallah sala allahu alayhi wasalam. wuxuu yidhi caliyow, waa ninka kugu dhufan doona madaxa dhiigga ka daadin doona ilaa garkaagu dhiiggaaga uu ku cillaanto, iyo ninkii naaqatu samuud nabiyullaahi saalixiinka loo soo diray hashii mucjisada ahayd kii boqortooyo weeye. labadaas nin ayaa waxay yihiin ashqa annaas, bani aadamka kuwa ugu nasiibka xun. waa xubinkii nabiga sala allahu calayhi wasalam, waa tilmaantii nabigeena sala allahu calayhi wasalam. ninka waxaa samaynaya oo cali bin abi taalib dilay oo jannada doonahaya xagga ilaahay buu ka xukuman yahay. xukunkiisu waxaa weeyaan ashqa annaas, dadka kuwa ugu nasiibka xun. ninkaasuu nambarkaasuu qaatay. taariikhdiibaa socota, taariikhda culamada lagu leen jiray masaajidda, culumada lagu laayay, saxaabadaa lagu laayay, intaas la laynhayaa. waddadii khulafaday hayaan, waddadii saxaabaday hayaan. kuwa laynhayaana waddadii khawaarijta iyo waddadii ashqa annaas ayay hayaan. waxaa ku filan nabigeena sala allahu calayhi wasalam tilmaamtuu ku tilmaamay inay yihiin kilaabu ahli naar,
أهل نار كلا درن أهل نار كلا ليلتا أهل نار كم أكتين إلى إيليين أهل نار كم إيليين إليه فرعون يا أبي لهب إلى ملائكة يروش معنا وحاولين خوارج تيجي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مركون نوعاسة وإياه الغكر معني أهل النار كا إياه إذا إلهي سبحانه وتعالى شرطه الله بدك قرطه إنه حالك قرطه وبدك كل يدوره ولو باهيه وحاولوا سوشيد الله تلاهان وحاولوا مصيبين حتى عباره وكدرين حتى طاعوك وكدرين مركز إلهي لبريه لقنوضه قنوط نازلة قلت محاله قنوضي واي نمك النوع محاله هراري واي مصيبة ما هميان نمك الوا مصيبة إلا حباره قولوا إلهه اللهم إنهم ظلموا العباد وأفسدوا في البلاد اللهم أهلكهم كما أهلكت ثمود وعاد اللهم صب عليهم صوتك سيد عذاب إن ربك لبالمرصاد وهذا الله الوهر إيش اللي هو meelaha waxa laga yaabaa maanta haddii arki lahayd meel khafro lagu qooshayo waa soo sheegi lahayd haddii arki lahayd meel lagu siyaysanayo waa soo sheegi lahayd waxa ka daran zino meel lagu siyaysanayo khafro la sancayo waxa ka daran guryaha waxa laga soo abaabulayo oo waxa lagu sancaynayo oo fakarkan uu joogo ayaa khafriga ka daran oo zinada ka daran guryahaas waa in la ogaadaa waa in la soo sheegaa waa in la qabtaa إلا سود وياه أو قاع اللموده أرنكاس وغلط صومالين ده كالفرع أيدينا قرطة إلى سبحانه وتعالى أسوى النغضة وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.